waxay tiri war orada waxaa tagtaa wuxuu yiri abaa musqushaan galaya musqushu dagay ala kulli xaal wuu isdaldalay wiilka Soomaaliyeed Allahu rahma wiil Soomaaliyeed ba California isku dilay gabaraan habar yar u ahay oo ay very close yihiin ba maalin dhaweyd soo wacday gabadha aan habar yarta u ahay gabar yar oo la dhalato ayadana habar yar u ahay ba ii sheegtay magaciisana ma sha Allah iimay sheegin family uu ka socday idin ma sheegayo laakiin dhibaatooyinka dadka Soomaalida isku sameeyaan xagga ilmaha bay ka socotaa sheekadii ba bilaabatay yaa wax yar oo 5 minutes oo kala haystaa waxay ku cunugan waxaa la yiri wiil aad u fiican buu ahaa gabar buu Afrika ka keenay gabadhi markuu Afrika ka keenay wiil young oo waxaa la yiri very good looking oo wuxuu family aad u jecel gabadhi wuu jeclaa Afrika ku keenay Allah u naxariisto waa runta walaalo Shaki Brown wiilkii waxaa la yiri gabadhi aad iyo aad markuu u jeclaa wadanka America keenay sheekadan waxaan idinku sheegayaa ilmaha inayna isbaare isugu dhigan markaad kala tagtaan gabdhaha Soomaaliyeed oo nimanka la sheer gareeya ilmaha ayaguna way dhaleen sidaad u dhasheen wiilasha Soomaaliyeed oo idinkana markay naagtu idin erido dad kale u soo isticmaalaha ka harinina ilmaha la soo fikira mar kale sanadkan haday ku erido sanadka kale adoo gift iyo wax wada waxa iska sasab marka waxaan rabaa inaan idin sheego hadalka idin kuma badinaaye waxaan rabaa inaan hadal haye waa baxaynaho waxaan rabaa inaan hadalka ku soo gabagabeeyo wiilkii Soomaaliyeed buu isdilay wuxuu isku dilay naagtiba inta ilmihiisa 1 minute see I promise waa baxaynaaye wiilkayga intuusa igu kicinaan rabaa inaan ka taga meesha wuxuu sheegay ma taqaanaa wiilkii waxaa la yiri naagti ilmihi way ka wadatay magaalo kale ula guurtay marka aad ninka guursanayso I hope noloshayda mar waxa waaye future-ka inaan barnaamij sameeyo Soomaalida I like talk show inaan maalin aan ku guuleysto meel Soomaalida laga hadlo oo dad khubaro ah ay isku wareystaan that's my dream laakiin hadda waxaan idin sheegaa intii tabartay ah marka waxaan rabaa inaan idin sheego wiilkii isaga ahaa sheer gareeya because hooyooyin badan aan rabaa inay maqlaan isku dilay hooyooyin badan baa isdilay tir gabadha Kaafiya Cabdi waa runta abaayo hooyo Canada isku dishay stress uu nin u geystayna waan maqlay oo maaragtay hooyo weyn ah ninkii intuu ka tagay ilmihii maaragtay qaar laga xiray rafaaday oo silcday wiilkaana saasoo kala gabar buu keenay noloshu la qaybsaday way ka guurtay ilmihii bay u diiday inuu arko ilmihii asagoo maalin walba wax siinay walaala ilmaha aan arko adiga xataa waa ku jecelahay sidoo isku lahaa amarka Ilaahay baa meesha ka qornaaye wiilkii maalintii dambe stress iyo depression-ka markuu dadku ku dhaco Soomaalideena ma hadalno haddaad wax dareento ama waqti qaadan naftaada dhaqaale ama waxaad la hadashaa qofku jecel weliga wax aad dareemayso kaliya ha isku sugay marka wiilkii isaga ahaa yaani wiilasheena Soomaaliyeed oo edebta badan waa ka qaaday lovely oo maaragtay sharafta leh buu iska ahaa wallahi Ilaahay amarkiisna meesha waa ka socday markii noloshii ku adkaatay shaqadiina ilmihii uu ka biilaayo naagtiina aynu u soo jeedin aakhirkii wuxuu u tagay walaashiisba maalintu nafta iska qaaday u tagay inuu la hadli rabay miyaa dhuuq hooyo calaalin ka kada si uusan ilmaha uusan u dhibin walaashiisba u tagay waxay tiri war orada waxaa tagtaa wuxuu yiri abaa musqushaan galaya musqushu dagay ala kulli xaal wuu isdaldalay wiilka Soomaaliyeed Allahu rahma 3 bari ka hor buu dhintay laakiin waxaan idin sheegayaa maadaama dadkeena Soomaalida ay yihiin dad dhibaatooyin badan ka soo dhargay rag iyo haweenba oo ay noo fududahay in aan ka baxno nolosha depression-ka dhib yaraan aan ku gali karno oo aad aragteen dadka badan oo u daaweynaya Dr. Xabeeb Muqdisho dad Soomaalida dhibaato ka soo dhargay waay annaga sababta ma lihin Ilaahay baa noo qoray inaan ummad baabaaday noqono laakiin annagana wax badan baan isku qorno isbaabiinay wallahi billaah waa runta Shaki Brown aniga laftirkayga waan yaabay wiilkii waa dhintay maamo kale Canada isku dishay marka rag iyo haweenko waxyaabahan yar oo aad dagaaladan yar oo dhaqaalaha ku saabsan dagaaladan yar ilmaha laga hormariyo idinkuna ha isku degdeginina because nimankii naagaha marka qofku stressku ka bato meel xun u gaaraa
إنه إسدلو جارا إنه قف كلا وحكو سمايو جارا حتى يلسنين الدين تقول نقض إلهي كعب صدا كل واحد سكول لينا إن الدين تي حتى واسكول لينا واحد نورون جران ما إنه سوماليا الدين بانسكو قرحنا marka waa idin ka tagayaa wiilkayga yarkaaba maaragtay meesha meel kale oo ka ballan qaadan u wada waxaan idin rabaa ciyaalka number 1 in laga dhigo cajiladan share gareey